Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalahayga marna asxaabteyda qaaliga ah soo dhawaada meel kastoo aad ka joogtaan dunida daafeeda. Isku soo noqod wanaagsan alxamdulillaah. Asxaabteyda qaaliga ah muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinkula wadaago baasto, suugo ama waxyaabo kale aad u isticmaali karto oo aad u fudud. Qaabka aan u sameeyey insha Allah isla socod wanaagsan ayaan idin leeyahay iyo ka bogasho wacan. Asxaabteyda qaaliga ah xagan waxaa iigu diyaarsan ama aan kusoo shubtay 4 xabo baradho dhexdhexaad ah oo 4 gees aan u soo jarjaray. Markii sidii suugada loo dalaco kala u dalacay. Waxaan sameynayaa marka qaadada ayaan dhex marinayaa baradhada si ay u wada gaarto saliidda oo dhan ciyowna ay u bislaato. Kadib waxaan kusoo darsan doonaa igaraan noqdo xoogaa yar waan xabeebsanahay hergeb yara iska jiro. Waxa meeshan iigu jira ujeedin waa ketchup ama yaanyada loo isticmaalo jibsiga iyo cunooyinka in lagu cuno basbaas ahaan loo adeegsado ayaan kusoo darsaday. Ketchup-ka noocyo fara badan oo kala duwan uu leeyahay. Aniga nooca isticmaalayo waxaa la yiraahdaa Royal kan waayo oo hot wuxuu leeyahay kuleyl ama basbaas ku jiro. Adiga mid basbaas lahayn waa isticmaali kartaa oo wuu jira. Iyaga naftirkooda way kala macaan yihiin ketchup-yada kuwa waxaa jiro lagu balaboonayo macaan dartiisa. Marka ketchup asal ahaan waxaa laga rabaa macaan iyo dhanaan isku jiro inuu ahaado. Basbaas ha lahaado ama yuusan lahaanin muhiimada taas maahan. Marka waxaa sameynayaa ketchup-kii aan kusoo shubay oo booska yaanyada ama shiishiida booskeedii aan isticmaalayo ayaan kusoo darsaday ama aan ku labay. Waxa hadda aan kusoo shubay waxay tahay weelkii ketchup-ka ayaan biyo soo raacsaday. Waxaan rabaa baradhada inay xoogaa yar igu bislaato. Mideeda kale biseelka baradhada waxay ku xiran tahay nooca baradhada aad isticmaalaysid. Baradhooyinka qaar ayaaba u abuuranba inaysan ciyow bislaanin ama adag. Marka baradhada haddii tahay mid adag ciyow ku bislaanayso. Waxaan kusoo darsaday ujeedin cusbo. Aniga intaan isticmaalayo qiyaasteeda. Waxaa idin tilmaamaya waxay tahay in aadan markaa labaysid baradhada iyo aadan jiif ugu labin oo aad joog ugu labtid qaadada si aysan kaaga jajabin baradhada. Waxaan tijaabinaynaa marka baradhadii inay noo bislaatay waana ujeedin way bislaatay. Wax badanna ma aysan saarnaanin waa daqiiqada ilaa 5 daqiiqo kale meelahaas. Suugaheeda u soo ekaatay. Xoogaa saliidina way soo yara baxday saa ujeedin. Inkastoo saliid zaid aniga aanan isticmaalin. Waxaa kusoo darsanaya marka malaayada mid ka mid ah malaayada gasaca oo mara isticmaalaya aniga. Biyihii iyo dhacaankii ku jiray ayaan ka soo daadiyay. Xoogaa yar qaadaan kusoo burburiyay si asagoo furfuran aan ugu soo dhex shubto baradhada. Haddii aan dhaho baradhada dhexdeeda ku dhex burburinayaa baradhadina iga jajabtaa laga yaabaa ama wayba jajabaysaa. Marka saas darteeda waxaa diidayaa baradhadina iga jajabto. Baradhadana sideeday u taagnaan doontaa wax la jijibinayo malahan. Malaygina waa kusoo darsaday sida hadda u jeedin. Wax yar isla huurinayaa. Markii xoogaa isdhexgaleen baradhadii iyo malaygii ayaan kusoo darsanayaa barbarooni iyo basal aan 4 gees u soo jarjaray. Waa hal xabo yar oo basal iyo hal xabo dhexdhexaad oo barbarooni ayagana waxaan sameynayaa waa ku labaaya si ay carafta isku dhex qaado. Barbarooniga iyo basasha waxaan jeclahay markii dabka aan xoogaa yar ka dejiyo uu suugada ay xoogaa yar qabowdo ama kuleylka zaidka uu ka baabao inaan ku daro si aysan igaga bislaanin baradhadii basasha iyo barbarooniga cafwan. Marka asxaabteyda qaaliga ah saas diyaar noogu tahay. Baasta ayaan hadda aniga kusoo diyaarsaday. Rooti iyo waxaa jeceshaa oo isticmaali kartaa. Muuqaalka xiga intaan ku kulmi doono waa walaashin Zikiya Aadam oo idin la amaana Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.